Caqli badnaantu waa awoodda aad wax dhaqso ugu baran karto, waa awoodda aad ku ururin karto xog aad ula qabsanaysa deegaanka aad ku nooshahay, waa awoodda aad go'aano sax ah ku samayn karto, waana awoodda aad dhibaatooyinkaaga ku xalinayso. Warka fiican ee aan ku hayaa wuxuu yahay inaad kordhin karto heerka caqligaaga. Muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa 5 tallaabo oo haddii aad samayso aad si aad ah u kordhin doonto awoodda caqligaaga. Haddaba ka hor inta aynaan sii gudagelin muuqaalkan, fadlan tixgeli inaad subscribe channelka saarto, jalaska ama gambaleelkana aad furato si ay kugu soo dhacaan muuqaaladu. Miyaynu dhaxalnaa caqli badnaanta? Caqli badnaanta qofku waxay ku xidhan tahay oo saameyn ku leh 2 waxyaabood, kuwaasi oo kala ah hiddaha qofka iyo deegaanka ku xeeran. Inkastoo aad waxba ka qaban karin hiddaha aad waalidkaaga ka dhaxashay, haddana waxaad wax ka bedeli kartaa qodobada ay sababayaan deegaanka kugu xeeran si aad u kordhiso heerka caqligaaga. Sida sare loogu qaado heerka caqligaaga. Kuwan soo socda waa ficilada ay tahay inaad samayso haddii aad rabto inaad kordhiso oo aad sare u qaado heerka caqligaaga. 1. Kordhi cilmigaaga. Qayb weyn oo ka mid ah caqli badnaantu waa inaad xog badan hayso, xogtaana aad isku geygeyso, intaa kadibna aad go'aano iyo gunaanadyo ka samayso. Haddii aanu qofku xog badan hayn, ma noqon karo qof caqli badan. Qof kastaaba inta uu qofka kale ka xog hayn badan yahay ayuu ka caqli badan yahay. Inta badan ee aad wax akhrido waxna barataa waxay badinaysaa inaad xogo badan ogaato. Taasina waxay sababi doontaa inaad samayso isla markaana aad qaadato go'aano caqli ku dhisan. 2. La soco oo raac dad caqli badan. Ma ogtahay in qaababka fikirka ay dadku kala baran karaan? Inta badan ee aad raacdo ama aad ku xidhnaato dad caqli badani waxay sababaysaa inaad ogaato habka ay u fikiraan iyo aragtiyahooda isla markaana aad qaadato. taasina ay sababi doonto inaad noqoto qof caqli badan. 3. Kor u qaad isku xidhnaanta maskaxdaada. Inta badan ee ay kordhaan xidhiidhada ay unugyada maskaxdaadu leeyihiin waxay badinaysaa inaad noqoto qof caqli badan. Si aad haddaba kor ugu qaado isku xidhnaanta unugyada maskaxdaada, waa inaad barataa xirfado adag ama aad ciyaartaa geemiska adag sida chess oo kale. Inta badan ee aad sare u qaado isku xidhnaanta unugyada maskaxdaadu waxay badinaysaa inaad noqoto qof caqli badan. 4. Cab kafee. Maadada ku jirta kafeega ee loo yaqaan caffeine waxay ka dhigaysaa qof maskaxdiisu aad u soo jeedo, waxaanay horumarinaysaa awoodda aad wax diiradda ku saari karto. Sidoo kale cabista kafeegu waxay kordhinaysaa awoodda ay maskaxdaadu ku shaqaynayso, waxaanay ka caawinaysaa inaad samayso go'aano caqli ku dhisan. Marka aad rabto inaad isticmaasho awoodda maskaxdaada oo dhan, cab koob kafee ah. Dhinaca kale, sonkorta badan iyo cuntooyinka carbohydrateska ahi waxay yareynayaan soo jeeditaanka maskaxdaada, waxaanay saameyn xun ku yeelanayaan inay maskaxdaadu si fiican u fikirto. 5. Maskaxdaada si hawo badan oo neef dheer qaado. Marka aad neef dheer qaadato, hawo badan oo oxygen ah ayaa gaadhaysa maskaxdaada. Awooddaada fikirkuna sare ayay u qaadmaysaa. Ma garanaysaa sababta ay dadka qaar u iloobaan hadalkii ay odhan lahaayeen markay khudbad soo jeedinayaan? Sababtoo ah cabsida ayaa ka hor istaagtaa inay si fiican u neefsadaan, waxaana markaa hoos u dhacda awooddii ay maskaxdoodu ku shaqaynaysay. Jimicsigu sidoo kale wuxuu kaa caawinayaa inaad hawo badan qaadato oo ay hawo badan maskaxdaada gaadho, taasi oo kaa caawinaysa inaad samayso go'aano aad u fiican oo caqli ku dhisan. Bal isku day inaad jimicsato, intaa kadibna aad shaqayso ama aad wax barato, waxaanad ogaan doontaa inay horumartay sidii ay maskaxdaadu u shaqaynaysay. buugga sida loogu guuleysto wax kasta oo aad rabto noloshu waa buug ay sii daayeen wax ka baro channel, kaasi oo 100% ka caawin doona tallaabana kugu sheegi doona sida loogu guuleysto wax kasta oo aad rabto nolosha, loona xaqiijiyo hadaf kasta iyo himilo kasta oo aad leedahay. Si aad u ogaato xog dheeraad ah iyo sida aad ku helaysaba, daawo fiidiyogan. Sidoo kalena linkiga ka eeg description-ka hoose ee fiidiyogan.